Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay halka ay marayaan gurmadka loo sameynayo dadka dhibaatooyinka kala duwan ay ka soo gaareen fatahaadaha webiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyahana Maxamed Cusmaan Daahiye oo ka qayb galay shir jaraa'id oo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ku qabtay Muqdisho ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar Ra'iisul Wasaare xigeenka dalka ayaa ka warbixiyay halka ay marayso hawshii guddiga gurmad qaran ee fatahaadaha. Ra'iisul Wasaare xigeenka ayaa sheegay inay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay booqashada goobo cusub oo uu webiga Jubba ku fatahay. Dhawaan ayuu sheegay inay gaareen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasi oo webiga si aad ah ugu fatahay. Ra'iisul Wasaare xigeenka dalka ayaa waxa sidoo kale uu ka dhawaajiyay in dawladda Soomaaliya ay ugu deeqayso lacag 500 kun oo dollar oo ay ku biirinayso lacagtii hore ugu deeqday. waa kan Ra'iisul Wasaare xigeenka oo ka hadlayna waxa uu yiri waxa saaka aanu isugu nimid guddidii gurmadka qaran ee fatahaadaha oo arkaysaan hadda hareen taagan shir dheer oo aanu kaga hadalnay ilaa hadda wixii noo qabsamay xaaladda ku qiimeynay ku talagalka iyaga iyo waxaanu qaban doono insha Allah mustaqbalkana kaga hadalnay annagoo ka duuleynay inaan fulino hawlaha noo horyaal waxa khamiistii subaxdii hore wafdi ku baxay aniga xildhibaano wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo Sheekh Yuusuf Cali Caynto oo aanu ku tagnay Hirshabeelle ku tagnay Beledweyne maamulkii la kulanay hay'adaha caalamiga iyo ciidamada AMISOM iyo qolihii ka wada shaqeynayay dhamaantood iyo madaxweynaha gobolka Hirshabeelle Mudane Waare aan la kulanay waxa kale oo nagu heliyay iyagoo ka jawaabay baaqi xukuumaddu ay jeedisay safiirka Turkiga iyo wafdi la socday hay'adaha TIKA iyo bishacaas ee Turkiga iyo safiirka Qatar oo ay helinaysay Qatar Charity waxa noo suurta gashay inaanu indhahayaga ku soo aragno dhibaatada dhacday iyo webiga siduu ugu fatahay uu aafeeyay magaalada Beledweyne iyo dhibaatadii ka dhalatay barakaca ahayd wixii karaankayaga iyo dadaalkayaga waxaan madaxweynaha ku wareejinay deeqdii intaanu ururinay oo gobolka Banaadir khaas ahaan intii uu ku tarsaday oo ahayd 100 kun oo dollar oo loogu talagalay gurmadka dadka tabaalaysan sidoo kale 5 kun oo qoys ayaa wadamadeena saaxiibka nahay Turkiga iyo Qatar ay raashin qaybin u bilaabeen oo anagu wax ka qaybinay aafooyinka ka dhashay ama ay tahay in laga hortago ka dhalan kara warbixinta saan ku qaadayna waxa kamid ah in arrimaha caafimaadka waliba kaneecada iyo shubanada ka dhalan kara biyaha waxyaabaha loo baahan yahay si culus looga hortago waxa jira meelo aan ilaa hadda biyaha fatahaada awgeed gaadhidii ay adag tahay laakiin aan ka shaqeynayno oo dhinaca kale ee magaalada ah iyo meelo go'doon noqdayba laakiin iyagana aan rabnay inaan gaadhno maamulkiina kala shaqeynno haddana ay ka shirayaan iyo hay'adihiiba Beledweyne waxa noo jooga oo aan kaga nimid wasiir ku-xigeenka gargaarka xildhibaan Farxiyo iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo wafdiga iyaga ka tirsanaa laakiin la shaqeynaya maamulka Hirshabeelle madaxweyne Waare iyo maamulkii la shaqeynayay hay'adihii iyo cid kasta oo ka gacan ka geysanaysa fatahaada sidii looga hortagi lahaa gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada sida aadka ah ay u saameeyso markuu webiga Shabeelle sameeyo fatahaad guddiga gurmadka fatahaada webiga Shabeelle oo uu Ra'iisul Wasaaraha qaranka magacaabay ayaa isu howlaya sidii ay wax uga qaban lahaayeen cabashada dad fara badan oo ku dhibaataysan fatahaadaha webiga Shabeelle oo uu sameeyo sidoo kale waxa jirta fatahaad barbar socota webiga Shabeelle oo sameeynaya isaguna webiga Jubba oo qayb ka tirsan gobolka Gedo uu ku sameeyay Maxamed Cusmaan Daahiye telefishinka caalamiga ah Somali Cable xarunta madaxtooyada Soomaaliya magaalada Muqdisho.